السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. anigoo ah gudoomiyaha ururka jiwayaal ee damiirta Gabooye. Horta maanta anaka farxad bay noo tahay guulka aan gaadhnay oo ah tallaabadii labaad aan qaadnay oo waxaa la yidhaahaa waxqabadka ummadda Gabooye ee dadka dhiban iyo dadka baahidu ay hayso. horta taa ilaahay baanu mahad celinaynaa intuna garab qabtay oo og niyadda dadka ururkan ku jira intay daacad yihiin, dad dhaartay oo ilaahay ku dhaartay intay ummadooda Gabooye daacad ay noqonayaan meel kastaba adduunka ay joogaan. marka waxaa la yidhaahaa waxaan doonayaa maantada anigoo gudoomiyaha ururka ah intaan u mahad celiyo qof kasta oo Gabooye ah oo waxaa la yidhaahaa arrimaha aan wadno la garab istaagay, oo waxaa la yidhaahaa ummadda miskiinka ah ee baahidu haysa caawiyey maalkiisa iyo waqtigiisa iyo hadday qoraal ay noqoto, hadday noqoto wacyigeli ay noqoto ku caawiyey. maalin ka mid ah xataa oo yacni horay ah maantada waxaan marayaa dadkii berigii hore ku jiray maanta waxaa la yidhaahaa tacabkii ay soo tacbeen ayay arkayaan. waxaasna anigaan oran jiray sabir buu u baahan yahay, dulqaad buu u baahan yahay. wax habeeniya maalin ku imanaya ma jirto haddaana u sabrin. marka waxaan doonayaa intaan horta u mahad celiyo ummaddii lacagta nagu caawisay iyo ummaddii xilkaas saartay ee lacagtii markii lagu wareejiyey si fiican oo sharaf leh oo karaamad leh oo nin kasta oo Gabooyaha meel kasta uu joogo uu ku faraxsan yahay ayaan u mahad celinayaa. talabaad waxaan u mahad celinayaa xisibkii wadani oo Ciro uu matalo isaga laftiisu uu ka soo qayb galay oo ummaddii Gabooyahana niyadda u dhisay, iyo waxaa la yidhaahaa barkhad mudane barkhad jaamac baatuun oo dee lagu yaqaanay weligiiba ummadda Gabooye waxqabadkiisa oo shaahid laga ahaa. oo waxaan u mahad celinayaa dhalinyarta ee Soomaaliland gudaheeda joogta ee caawisay ee maanta arrintaa aan awoodnay intaan wax soo aruurno aan wax u qabanay iyagaa ka dambeeyey asaasan. fiidiyoday soo duubayeen wadciga ummaddeena ay ku nooshahay iyagaa soo gudbiyey. marka waxaa af Soomaaliga af carabiga lagu yidhaahaa dadkaasi waa jundun majhuul, yacni waa nin military ah aana la garanayn oo dee wax ummaddiisa wax u qabanaya aana ajir ka sugeyn, aana intay la amaano aana ka sugeyn, xagga ilaahay ugu qabtay. horta dadka dhalinyarta joogta Soomaaliland gudaheeda aad iyo aad iyo aad iyo aad ba u mahadsantihiin. waxaana soo gudbiseen waxaanan ugu mahad celinayaa khaas ahaan inamadiina guli jiray ururka jiwayaal ee ka baxay ee gruubka cusub lasoo baxay la yidhaaho GLG la yidhaaho oo guddoomiyahoodu yahay xaashi abaadir. iyaguna waxay ahaayeen dadkii naga qayb galay lacag uruurista. aad bay u mahadsan yihiin ururkaasi laftiisu. ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaanu tafaraaruq ummaddayda Gabooyaha aanu ku dhex dhicin oo waxaa la yidhaahaa qofkii naga baxay dib labaad noogu soo noqdo oo wax nala qabto. adigaa aragtiin gacmooda jir ayaa wax lagu qabtaa. markaan gacmo keliya ahayn waxaa la yidhaahaa waxaan waa isla qabananay waa taa maantana ay muuqato. markaa waan la talinayaa dhalinyarta Gabooye oo dhan meel kasta daafaha ay ka joogaan adduunka ay iloobina dadka masaakiinta ah ee Soomaaliya joogta, Soomaalida joogto, Jabuuti aad joogto, Kenya aad joogto, Ethiopia aad joogto, xamar aad joogto, Puntland aad joogto. innaka qurbaha joogna
inaka caawin karnaa. ummad kastana dadkooda qurba jooga ayaa wax qabta, dadka ummad qurba jooga ayaa caawiya. nin fuqar ka soo baxaya ma jirto haddaanan dadkeena qurba joogani inagu aanan caawin, aanan mas-uulnimada saarin. marka waxaa la yidhaahaa aada iyo aad baa mahadsantihiin. insha allah wax qabad badan niyadda wayna geli jirtaa haddii dee ummaddeeda nagarab qabato weeyaan. laakiin inaga ilaaliya uunta faraaruqa, inaga ilaaliya dadka maskaxdeena kala xadaysa, inaga ilaaliya dadka doonaysa intayna kala jarto idinkoo gabooye ah, marna muuse leh, marna madhibaan leh, marna kanaa tahay, marna tumaabaa tahay. waxa ogaatiin kulligeen hal baan nahay. haddaan soo aruursano dadkeena qurba joog way badan yihiin, gacan inanka wax u qaban karna ummadeena. xukuumadaha soomaalida ma u baahni, cidda ma u baahni, inanka kalsooni isku qabno. laakiin waxaa la rabaa inta qof kastaba uu dhaarto intuu ummadiisa wax u qabanayo daacad uu noqdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.